Assalaamu calaykum. Waayo kasta oo aad sii noolaataba waxaad la kulmaysaa yaab iyo mucjisooyin gooniya ayadoo aysan ku sii jirin inaad hawlaha caafimaadka ku dhex jirto. Caafimaadka ayaad kala kulmaysaa ama aad buugaagtiisa ka akhrinaysaa waxyaabo aad ula tacajubto aadna ku garato awoodda Alle waxa uu kaa hayo iyo nimcada aad ku jirto. Muuqaalkeena maanta ayaan kugula wadaagi doonaa ninka neynaasiisa laga dhigay ninkii geedka ahaa. Qisadan oo aad ka qaadan doonto waayo aragnimada waxyaabaha dhici kara inaad aragto iyo sidaad ula tacaali lahayd haddii aad aragto qof sidaasi oo kale ah. Muuqaalka ayaa kaa qaadan doona dhowr daqiiqo oo waqtigaaga ka mid ah. Waana kaaga mahadcelinayaa inaad ii ogolaatay inaan waqtigaaga kula qaybsado. Balse ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelka aadna danaynayso sheekooyinka caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe na saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelino ee waxtarka leh. Aan bilaabo fiidiyowga. Janawari 30 2016 ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala waddanka Indonesia Dide Koswara oo ahaa ninka loo yaqaanay Tariman afka qalaad ama ninkii geedka kadib qaliimo badan oo lagu sameeyay jirkiisa. Ehelkiisa ayaa ninkani soo dayriyay kadib markii ay ku karaasadeen xanuunka qiyaray muuqaalkiisa sababtana u noqday in loo bixiyo Tariman ama ninkii geedka ahaa. Xanuunka ninkani ku dhacay ayaa afka qalaad loo yaqaanaa epidermal dysplasia piriformis, kaas oo natiijo ahaan qofka u keenaya in jirka laga xadidi waayo fayraska loo yaqaano human papilloma virus oo u keena qofka jirkiisa inuu yeesho qalfoof sida geedaha oo kale ah. Dide Koswara waxa uu guursaday xaas una dhashay 2 carruur ah, balse ugu dambeyn sababta xanuunkiisa ayay uga tagtay markii ay ku caawin weysay noloshaas asna uusan wax shaqo ahayn. Xanuunka ninkaasi ayaa ahaa mid aad u daran, qiyaas ahaan qalfoofta dusha ka saaran miisaankeeda ayaa gaarayay ku dhowaad 5 kiilo iyo dheeraad. Darnaanshaha xanuunkiisa ayaa Dide ka dhigay mid lagu aqoonsado khayraadda jirkiisa ka muuqata, waxa uuna ahaa mid looga hadlo jaraa'idada waddankaasi Indonesia. Qalfooftiisa oo u muuqata sida geedo ka soo baxay lugihiisa iyo gacmihiisa ayaa shaqada ka yareysay addimihiisa. Sidoo kale dadka ayaa aaminsanaa in dhibaatadani ay tahay mid ka timid habaar ku dhacay ninkani. 2008 ayaa qaliin lagu sameeyay Koswara waxaa looga soo saaray wax gaaraya 6 kiilo oo qalfoof ah. Qaliinka ayaa lagu guulaystay ugu dambeyn waxa uuna noqday mid xirta dacas si uu u socdo. Balse waqtiyo yar dabadeed qolfaha maqaarkiisa ayaa bilaabay inay dib u soo koraan, keenaana go'aan ah in sanad walba 2 qaliin lagu sameeyo Koswara si looga taxadaro dhibaatada ay u keenaan honqoradani jirkiisa ku yaala. Koswara ayaa ugu dambeyn u geeriyooday xanuuno badan oo soo wajahay sida dhaqaatiirtii dabiibi jirtay ay sheegeen, waxaana ka mid ahaa xanuunadaasi jirooyinka ka soo wajahay beerka iyo caloosha. Dide waxaa dhul dhigay xanuunkaas waayihiisii ugu dambeeyay nolosha, inkastoo xanuunka waxa uga liita ay ahayd aflagaadada iyo cayda ay u geysanayaan qoyskiisa sida uu sheegay mid ka mid ah dhaqaatiirtii dabiibi jirtay waayihiisii nolosha. Familkiisa ayaan ahayn kuwa niyadda u dhisa una sheegin inuu niyadda wanaag u sheego, balse Koswara
ayaa ahaa mid aan marnaba ka rajo beelin inuu wanaagsanaan doono intuu nool yahay. Diide waxa uu la tacaalayo cudurkiisa, balse dhanka kale dadka ayaa ka dhigay ama ku suntay nin habaaran ama ay habaareen eheladiisa iyo qaraabadiisa. Ujeeddada sheekadeenna maanta haddaan soo koobo, waxaa muhiim ah qofka walaalkaaga ah ee xanuunsan inaadan ku digan oo niyaddiisa dhaawicin, maxaa yeelay qalbiga qofka xanuunsan oo wanaagsanaada waxay qayb ka qaadataa daaweyntiisa iyo la tacaaliddiisa. Sidoo kale sheekadan ayaan ka baranaynaa in caalamka aad ku arki karto cudurro aan niyaddaada ku soo dhicin inay jiraan, balse waxaa lagaaga baahan yahay dhaqaatiirta iyo khubarada ku cilmiga leh inaad la wadaagto ee aadan ku xukumin khuraafaadka iyo waxyaabaha aan wanaagsanayn ee dadka ka dhex jira. Muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato, commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. Fiidiyowga inoo xiga insha Allah.